صديق برمد أبوان سودو ودوي أحمد أدبا مع سنتهين إذا الكيمبا كي إف كوحدينا لبض مقع أبواني صحفي كاتش عشاط والله ما هرتم مقعيها يقولوا أنا أدبا نفهم بيه أنا مقعي قدس وصف كراش صديق ولا قال يا صديق محمد واقرت marka naanays noortu lagu mashii horta maxay noqonaysaa تيمك مقع فر بدن با inta badan la isku sheegaa moogta kal yaqaan abwaan qora marka mala waa title maxay noqon kartaa talo waa title-ka darajadaas ugu dhowday bal malaynaya waay ya labada shaqay hadaba ahad waa kulli waska shaqooyin iyo qulub waa xirfado aad iyo aad labada xirfadood keebad aad yani guriyaan isku aqaana ilaahay markiisa guriyaan isku aqaana guriyaan hay guriyanimadaas aan kal iyo laaba aad ya warno wada waa xirfadaadii ka horeysay malaatan kale wallahi ma suugaanta horeysay in badan waliba ka horeysay hatta maxay u qaadan weeyay mana dhigayba laakiin keeba igu weyn markay tahay waxaan kama soo hadho xiisaha baashanka wax aad u hayso beride suugaantu ay wax walba igala weynayd suugaantu waa wax weyn ma kala laakiin haddana shakhsiyan markaan iskala hadlayo beri ay wax kasta igala weynayd oo ku riyoon jiray baa jirtay oo xitaa soo toosi jireenoo erayo oranaya oo qori jiray wallahi waan garanay anigoo Cabdullaahi Muuse aan dhigan jiray oo xiisadoo socotaan maansooyin ku dhex qori jiray aan xasuustaa ilaahay markiisa haddana dharkun baa lagu mari jiray beriga dee note-kan iyo mobile-kan iyo wax lagu qorayaa ma jiri jiray moogta yaa kama hayaba waxaan tirin jiray aad baan u xiisan jiray marka xiisaha hadii laga hadlayo imka saxaafadda laftigeedii baa badda xiisihii aanan u qabin bay laakiin saxaafadan ku dambeeyay xiisaheeda ku dambeeyay shaqahan macnaheedu aad ugu dambeeyay way waxaan bardib ugu noqonaynaa waayahagii caruurnimo ma hargeysa ku dhalatay mise magaalo kale aniga hargeysa ku dhashay xaafadda Xawaadle marka waa egas hargeysa bal xilligaad ka caamisay bal hargeysa aad noo soo warto waxa laga yaabaa hadda magaalada waa la isku yimid oo caasimad bay noqotay dad badan baa yimid qaar badan hadda waa la korayo dad badan baa xilligan soo gaaray casriga bal dib iyo caruurnimadaada hargeysa way ka wallahi dee horto hargeysa ma wada mari jirin sida imika dee aan niyarida hargeysa kama wada warrami karo dariskooga iyo xaafadaha agtooda uu dee ka warrami karaa moogta dhacdooyin yaryar baad xasuusan kartaa niyo hargeysa haddii baladhkeedii xal laga hadlayo ma dee kulley way yarayd laakiin nin soo wada arkay ma ahayn laakiin dhaqankaa aada isku bedelay dhaqankaasi qayral caadiya isu bedelay oo ummaddii berigaa jirtay xitaa maba ahaba ya berigaa waxaan garanayaa xaafaduhu ehel bay ahaayeen dadku waxbay isku ahaayeen jaarku waxbay isku ahaayeen waxaan garanayaa dee hargeysadii hore kaba kaalayba markii la soo noqday waxaanu isnaqaanay oo xaafaduhu isku mid ahaayeen waxaan deganaa xaafadda la yidhaahdo ganad dee masaafo dhan oo kala durugsan oo imika malaha aan ku qiyaasi karo dee dhowr kilomitir inta degto oo dhami waan is wada naqaanay family baa la iska ahaa guriga daantood seexanaysay kaataduntaad ka soo qadaynaysay darisku waxba la isu wada ahaa gurigaa habartay baan iska tegayay bila iskala noolaanayay imikana laba wada dhashay baan war iska haynin waxba la isuma aha iyadoo imika hadda accessku intii hore ka fudud yahay oo gaadiid la haysto oo telefoon lagu wada hadli karayo oo arxanku berigaasuu ka badnaa kalgacalku berigaasuu ka badnaa waxa soo ahaanshuhu berigaasuu ka badnaa ana waxaan xasuustaa waxaan dhigan jiray iskuulka Xuseen Giire markaan ka soo baxay maaragta ayaa xaafadeedii gana tagayno waxaanu istaagi jirnay goolad yar oo marka Xuseen Giire laga soo baxo oo baska xara awr u mari jiray bartaasan istaagi jiray baskuuna qaadi jiray ilaa xaafadaha yaga imika waa kee baska ku qaadaya markay dee bal cadaada la arkaa madriiska bas ma badhici karin ku dhaafay waxa kale oo aan xasuustaa suuqa hoose markaan baska ka soo raacayno waan istaagi jiray marka dadku korayaan aniguna maaha qof kasta oo aan lacag haysan wuu sugi jiray intuu buuxsamayo waayo qofka istaaga lacag lagama qaadi jirin
deedna markaasaanu kori jirray wax la isla yaqaanay ahayd inaan qofka lacag la weydiin imakana 5 ka laalaada 5 laga tirinaya marka eeg berigaasa laga jeeb yaraa laakiin waa laga iimaan badnaaniyo wax waliba way ka baraka badnaayeen waxaan garanayaa anagoo yar yar oo xaafadaha meeradu ka dhacayaan intaanu iska gallo aan lagu weydiinay kana waa ayo waa lacagta gabaatiga lagu bixinayo lama kala lahayn ina ayana may ahayn koto kunushaas la isugu dhibay inta fadhidoon gol kala qaadan jiray jaarka xaafada meerba ka jiray oo ciyaalku dhanba tagi jiray laana loo jiray kan uu yar yahay iyo kan waa ina aya iyo horta imaka meerba xaafad lagu ma qabtade hotel weyn baa loo koreystaa maaya masaajidii baa la kareenaya xataa masaajidkii ilaahay baa la kareenaya adigoo isla sunno ku soo tuko baba gaar baba taaganba oo la kaarmisata oo meherba waa gartay marka wax waliba waxaan ku qoslay maalmood baa oo kan hotelka la furiyay moogta dhawaan baa markii la lahaa sidaad ugu maartay ugu iibisay qof hotel saxanaya hotelkan imperial oo kale markii la furiyay waxaan jeedaa Orientanka Orientan Hargeysa kotomaadka ma lahayd markii la furiyay baa la yiri sidee baa qof reer Hargeysa iyo qof martiya lacag uga qaadi karaa degba la hadlay go'de marka wax waliba imika sidii hore ma aha arxankii naxariistii dariskii is yaqaanay ee waxa la oran jiray labadaas way isku dhaceen oo dabka ma kala qaataan imika ya dabka kala qaata ma la isku wada dhacay waa la yaqaanay labadaas xaafadaas wallahi dabka ma kala qaataan waayo markuu dabka waa la aasan jiray si berito loo shitaha ama sir baa la saari jiray dadna aroorta ayaa dhameeyay laga shidan jiray haduu ka hadimo laakiin jaarkaaga ka doonanaysa iyo dhanaaniska qooshka iyo maaragtay jaarka laga doonan jiray imaka aniga igaasaaba waxaan garanayaa dhowr guriyo waan degay Hargeysa Kiroolaan hay oo aan gurguri jiray moogti oo mid walba dhowr sano aan deganaa waxaan ka guuray anigoo aan jaarkayga garanay wali waayo iyagu deerbi ku dhex jiraan kuwa yar saaxiiba male halkaas bay ku xareysan yihiin aniguna ma hadde waagaana intaanu isku raacno konton ciyaala ayaanu maalintii oo dhan caafimaadka iyaga maskaxdayda furfuraaba badoo ka war ilmahan hostage-ka ee gurigaas ku jira in cid kale garanay ama qaar moobil la sheekaysanay moobilka marka maalmo dhaweyd waxa baan arkayba dhowr guriyo asxaabtaydu aan soo maray English fluent bay ciyaalkii ku hadlayaan Soomaaliga way jabsanayaan anoo markaan isiraahdo biri dhow luqadii malaha idinka ugu dambeeya wax ku sii hadli doonaba kii gaalada dhaladka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ku hadlayaan waxaad mooysaa qurbajoog caadi aan meel laba waana ubad yar yar hooyooyinkii baan weydiinaa heela ma idinka baalkan kula hadlaa may iyaguba saa uma garanayaan waalidkood soo moobilkan bay la nool yihiin oo saaxiiba lama noola jaar lama noola deris lama noola cid la kale oo la sheekaysato oo ku yaray halka reer galbeedku soo duubeen aan ka ahayn faa'iido si way u tahay laakiin daafkii baba horta ugu yaraan meeshii ka baxaya waxa meeshii ka baxaya saameyntii bulshadiisu ay ku lahayd dhaqan ahaan diin ahaan fahan ahaan fikir ahaan wixii oo dhan ummad kale u noqonaya marka waxaynu soo marnay xilligan aynu nooleen isbedeladii ugu waaweynaa ee malaha dhaca ayaa nagu dul dhacay xaq dhaqan iyo xaq teknolojiyadba haday marka qalabkan aad ugu wareysanayso waad arkaysaa Soomaa wadiga hadda la yaabana marka studio haayo kulaha waxaan yar ma mixer ba aadiyaad aan idaacada Allah u naxariistay Xasan Jaama maalinkaygi waan garanayaa studio intaas u leekaday bahalkii mixerku waxaan garanayaa imika soft copy baad ku qaadaysaa anagoo la yaaban CD ba wax la ilaaba soo baxay flash baa ka dambeysay waxa ka sii dambeeyay hadana kolba waxba isbedelay ma garanaysaa memory baa ka dambeeyay memory Bluetooth baa la soo diray AirDrop waxa dhacday technology waxa qabata waxa la dhaafay Ingiriisiga time and space compression shay weynaana way soo koobtaa xawaarihi iyo waqtigan way dheeraynaysaa marka ummad ahaan inaga wax badan wallahi xusuusin baa dhaqankeennii isugu keen dul bedelay caruurtii ma aha imaka generation waxaynu nahay nool aan shaqaba isku lahayn oo aan isku si u fikirayn oo aan isku dhaqan ahayn oo aan isku awtaadhayn bal ka waran oo aan bis laba haysanba asal su'aal ka weydiinaya imaka marka imika aad eegto dadka kala generationka
inta waxa isugu yimaadeen bariih bulshada cawaaqib maanay hayn masalan xagga fikirka iyo deeimka waxa dhacaya waxaanad u malaysan karin inay dhici karaan ayaa magaaladaada ka dhaca waa hadda aanad laakiin waxbaa ku dhiba laakiin waxna waad maba malaysan kartidba inuu dhacaba waxaasaa dhaca waayo generation dhan baa halkaa marayaba marka waa la kala fogaadayo dee waad in arkay xitaa baraha bulshadu imika sibay u kala soocayeen tiktoka inbaa ku jirta facebooka inbaa ku jirta twitterka inbaa muxuu ahaa ku jirta in aqoon-yahanada isku bixi waa group satay dhalaynoo kala xirxidhay aad iyo ma garanaysa xitaa satay dhalaynoo kala xirxidhaydaasi ummadihii horeen ka yimid bay dee la haysataayo taydha waxa loo xirxidhi jiray bacyar baa loo xirxidhi jiray imikay nala fahmayaan aad iyo ku shilniyaha sida firqada gaaska iyo markaa xitaa wax walba waa isbedeleen dhulkiiba isbedelay deegaankiiba isbedelay dadkiiba isbedelay arxankiiba isbedelay afkunbaa fiicnaan laga sheegaaye muuji iminka fiicnaan badani ma jirto berigaasaa wax waliba fiicnaayeen ummaddu habi bay ahayd waxaan stresska iminka la ydhaahda ee dadka haystaa ma jiri jirin iminka waxaad arkaysaa qof dhan oo aanay waxbaba ka maqnayn hadda oo haddana diiqun ku jira uun oo telefonkiisa ka naxaya oo aan ka qabanayn walaalkii oon in adeerkii ka qabanayn waxaanuu ka dhacayana garan maysid cid lacag ku leh garan maysid waa diiqiiskaga jiraba berigaana namari baa la odhan jiray waxaan soo baridinaa ilmo hebel waa la soo wareegi jiray xataa xaqaliidka waa xaafadaha bismillaahi raxmaan raxiim edada iyo waryarta iyo waa iminka yaa xaqaliid kusoo dooranaya marka kalgacalkiyaa meeshii yaraadayoo heelaha laga ba-ayna dee waxaa ka mid ah horta waxaan talo xaaraanta idin dhuumataybaa waayo iminka wixii xaaraanta la odhan jiray maba jiraba dee tan dhacdhaca loo bixiyey dee ya meel aanay ku jirin haba yaraatee yaa ma jirtaba markaasaa iyadoo aan weliba warwar laga qabin oo aan xumaan lahayn baa maaragtay wax caadiya ay tahay oo lagu odhanay maad ka dhisan wax meesha maad ka noolaan marka waxyaabahaasa malaha niyo tiih inagu riday dabeetana dee waa lala qabsaday markaa quruxda iyo daaraha iyo wadooyinka iyo hayweeyadaasi mar haddaanay farxadin waxaan horta waxa ugu qiimo waxaan biniaadmigu wuxuu galabsadunbaa ku dhacadee aayad baa sheegaysayba soo maahan masaxdiis buu ahaa midunbuu ahaay markaa waxaad ku garanaysaa waxa ugu dadku waxay moodayaan masiibada ilaahay kugu ridaya markay dembi gasho inay amalowgii ku go-ayso wax noocaas war farxadoo laga qaadaa ka mid a ka war haddii adigoo wax walbaba haysta aad farxiba weydaba ood far ku gabato nin far ku dhuumanaya horta maxuu wuxuu haystaa u tarayaaba hadduu kaa farxad badan yahay ninka buul yar ku jiraa ka war ee dameerkaa ku dhaaminaya waayo wax yari horta ma jiro wax weyne ma jiraba anuusan aaminsanahay waa indhihii aad ku eegta uun iminka ninka hargeysa ugu taajirsan ya maqol wax ka badan buu seexdaa guryihiisoo dhan macaaw muu wada seexan karaa gebigoogaba dee aadna qolkaa waad seexataa kolle nabad baa haddaa dhex seexata kabar ku gabaada qolkaasunbaa unbuu ka seexanayaa unbuu qolkiisa guri waxalaale waxa uu maaliyad haystana eedhe nafar unbuu kaga qadaya soo maha miyuu caawu odhanayaa saddexdaa hodheel iyo xidha keligeebaa cunaya dee waa maya haa nafarkaasna aadba waad cuntaa laakiin waxaasi uu siduu ku helayaa hadday qalad tahay farxaddii baa ka maqan dadku isma weydiiyaan waxaan maxay kugu dhaceen halkay wax ka sii yihiin macaan baa haya dhiikar baa haya diiqad baa haysa islaantiibaa faraqa haysata oo haddana waxay tabanaysaa aan la garanayn ware habiba ma noqonayaba xoolo dad buu iska soo gurtay laakiin waanu isu geysanayn maxaa kugu dhacaya maxaad samaysay diibaa ka kala maqan waxaa ka maqan isku miisaamo dhibka maxaa kugu wacan maxaa kugu wacan maxaad u farxi la-dahay maxaad u dhuumanaysaa maxaad ugu qaban la-day telefonka walaalka waxaan mabaysi weydiinayaba markay noqoto hadda saxaafadda iyo hal-abuurnimadaada waan isku googoorsanaynaa moogta waa laba xirfadood oo labadaba dee bulshada u baahan tahay hadda markay saxaafadda noqoto saxaafadda goormaad soo gashay
ida ku dheeda xilligaas saxaafadda waxaan soo galay 2003 aniga oo iskuulka Faarax Xumar form 1 ah baan form 1 markaa soo galay baan dhinacna wakaaladda biyaha ka shaqo galay markaas haddana damcay inaan idaacadana ka hadlo markaasaan idaacaddiina tegay aduu dhowr sano ayaan iska temporary yaroo dhexor orada ahaa la joogi jiray aakhirkii way sii daayay meel dee rag wada waaweyn joogaan bay haydo yaa khadra ku loo yaraa malaha iyo cala caara dhamayo xasan maxamed yuusuf baa joogay ma garanaysaa marka aduu rag wanaagsan oo goba oo wada codkar ah oo wax laga baranayaan meesha kula kulmay laakiin dee nin yar inuu nin yar yahay dee lala yaabayo dee makana idaacadda lagu sii deynaya macnaha mas-uuliyadda weyneydii meeshan galada ah ma hadda moogta marka idaacaddii reeriyo hargeysay ahayd wax weyn bay ahayd yaa kowdhe cidda ka hadli jirtayna cidda keliya ee caan ah bay ahayd soo moogidde aad iyo aad caan kale ma jirinba tani waa Hargeysa waraa berigaa waxaan garanayaa telefoonaa noo ooli jiray moogta oo shirkadaha ah haddaad saa telefoonka u qabato degdeg ma hebelba codkaagaa markaba la garanaya ma garanaysa muuqayaga lama aqoon waxaanu ahayn dadka keliya ee caanaba intay idaacaddu gaadho iminka maxaa soo baxay waxaa soo baxay inaan caan lagu noqdo waxba la-aan soo moogid mayde waayadii hore oo dhan qofku waxbuu caan ku aahan jiray ma gabyaabaa waa abwaan hebel ma siyaasibaa ma ganacsadaa waree waxbaa la soo kori jiray sooma hadde iminka waxaa lagu odhanayaa hebel waa caanoo waa la soo dhaweynayaa oo muxuu caan ku noqday gabadh bay ka wada sheekaystaan baraha bulshada oo haye markaana dee waa la garanayaa oo wadda soota wada sheekaysataa midda kale in baraha bulshada lagu sheekaystaa gorbay wax aad iyo noqota waa liyaha dee iminka aan la iskula qabsanayne kala generationka loo yahay yaa aanu waxaan la yaabi jirayba nin gabadha uu la sheekaysto igu odhan jiray gurigaan ugu tagaa baan madaxa qabsan jirayba yaa oo hooyadeed baan isnaqaanaa ayaan dhaqan horheedhe nin ummad waalanta haa aniga xaaskaygii markaan isguursanaynay wasaaraddaanu ka wada shaqayn jiray moogta 3 sannadood baan wada sheegaysanaynay dee barnaamijyadan oonu wada qaban jirnay shaqaalihii nala shaqaynayay waxay ogaadeen inuu subaxii kaadhkaan u qaybinayay odii lahaa intuu xanibnaa haade wuxuuna saas u dhadhan ku leeyso moogtay aad iyo aad imankana waxaa lagu leeyahay life baa lasoo fadhiisanayaayo hay xabiibi ha macaanto dadkiina lifekii bay daawanayaan oo horta waxaas weydiiyey waxaas waxay aniga ilaa imika ma fahmi waay anigu waxaan la yaabaa macaadi may koolka iyagu iska soo garaacaan waxaan oo taa dadka maqashinayaan iyo neeca waxaaba lagu leeyahayba saasuu markaa caan ku noqdayba heblaayo waa caano gowdhe iminka dad badanood fanaaniin u taqaanoo caana heesahooga badi caan kumay noqon baraha bulshada waxay caan ku noqdeen qararacdan kale baraha bulshada waxaana u kabaya waxaa laga yaabaa heesihiisaba 2 mar 3 mar laga yaqaanba anigu waaga waxaan ku bartay barnaamijka xulashada raadiyo haye barnaamijkaasoo kale saaxiibka dee wuxuu ahaa dalabaad buu ahaayo heesaha la dalban jiray nambaraha la tirin jiray waan xasuustaa barnaamijka hortayna waa la qaban jiray oo xasan maxamed yuusuf baa qaban jiray horta muddo dheer markii dambe ana kala wareegay intaan xasuusanahay aniguna malaha dhowr sano 2 barnaamij baan isku hayn jirayoo woo dhinacna xagga fanka iyo waxaas iyo ka sheekh dirir ee su'aalaha lagu weydiinayo bariga ka shaqaa meesha sheekh dirir 8 sanadood baan su'aalaha weydiin jiray waa gartay gowdhe kulli dee u jeegala markiina codkaagun baa la maqlayay haa markaasaa mararkan su-aalaha waaye berigii dambe xitaana su-aalaha u samayn jiray talo madambiba ya sheekhayna weydiiyey sheekh dirirow hee maanta su-aaluhu weyn nagu yaraan barnaamijkii aan kaa duubayna aan ku lahaa heblaaye hebel su-aal ay soo dirtay su-aal lamay soo dirin anigaa soo qoray diinta waxaa ka qabtaa kulli dee dadku way faa'iidayaano markaa qaar badanoo macquula waan ku dari jiray oo dee laga faa'iidaysan karo dadkuna nin su-aalo isku soo noqnoqonayay marar badan soo weydiin jireenoo arrimaha salaada iyo arrimaska maarta runtii wallaahi me waxay u badnaayeen tabashooyin bay qaar u badnaayeen ninka iyagu beele ma siiyo sheekh markaa
diintu maxay ka qabtaa deebiilkaaga ka dooro sheekh dirna faham baa marka xulashada weydiisa xulashada kolba waxaan ku soo qaadan jirnay oo sugaan bay u badnaan jirtay marka qaarkood waxaan wadi jiray taxano xitaa jacaylka ka hadli jiray dareenada jacaylka oo waxaan anigu qoray iyo waxaan google-ka ka soo baaray iyo waxaasoo aad loo jeclaysan jiray marka qaarkood riwaayado nin cabdiweli saxardiid la yiraahdo iyana batun jiri jireen oo live ay ugu jiri jireen aad cajiib ah kolba adu wax fani sugaana la xiriira waxa soo shiilku iska jecel yihiin ayaa oo siyaasadna ka maran waxaan arkay xagga sugaanta 2001 tartamaad ka qayb gashay waxaan kala gabi tirinayo kaanta saddexaad bad ku gashayba warun waa kiigu horreeyay ka qayb galay waxaayo horteedu waan gabi jiray laakiin kiigu horreeyay waan maqli jiruun bariga xuseenkii markaan farxo martagnay baheedo waxa dhacday waxaan maqli jirin tartana laga qayb galay kama qayb gali jirin xitaa ardaydeeda baan tagtagi jirtay oo maqli jiray insiid la yiraahdo iyo marka maalinta waxa igu dhaliyay aniga iyo ninkaysa cali aadan la yiraahdo oo imika sarkaal ah oo aad saaxiib u ahayn oo walaal ahayn oo ninkii sugaanta baan kaga daydaba ah oo standard 7kii ilaa aan isku class ahayn oo isku kursi ahayn ayaa meel aanu ku wada qaylo markaas waxaanu ka fikiraynay mustaqbalka saan u shaqaysan lahayn oo inaanu ganacsi sameeynaano ka fikiraynay marka waa rogrognay waana naga go'naydniyo wax nagu dhacay garan maayay marka deetana waxa dhacday waxaan soo ogaaday jaajuurka oo qolo jaajuur oo agtayada la shaqayn jiray waanagu waan laftigay waan la sameyn jiray faa'iidada ku jirta jaajuurkii baan xisaabanay inta laga fidbal qoba lacag maydhanba waxaan hadaba halka asadkiisii lagu bilaabay xaqeenu ka keenaa marka waxaan riwaayad aynu dhigno riwaayadii saynu sameyn riwaayadii time bay qaadanaysaa ay kharash baynu u baahanay marka san tartankan aynu ka qayb galno saad kaalmo hore u gashaan san maadee lacagtii aynu riwaayada ku sameyn lahayn halka ka soo heshaa riwaayadii waan loo qaylay aad iyo aad ya markaasaanu ka qayb galay anaa ku soo baxo kaalinta saddexaad galay bil bay lacagtiin hays oo riwaayadii ku diyaarnay bal riwaayado kala dhaqaaqan horta waagii sameyn waga waxaan u yeernay dhowr nin oo kale oo iyaguna nin maxamed ducaale la yiraahdo oo aad u wanaagsan oo erayadana sameeyo heestan la yiraahdo oday baa qaada iyo dahagaas cabdigaas iyo dhowr nin oo kale marka magaalada xusno koox fankaab la yiraahdo baan markaas sameynay 2001 haddana riwaayadii dhigno kadibna shaqada qabata jaajuurkii sameeyay lacagta ka soo baxda ma garanaysa waa kar ya gaariya baan u tagnay markaan riwaayadii diyaarnay baan qalab u baahnay waqti kuna ya waxaan deeyaa sameynaya sugaariyo nagu oday Allah naxariista hadal cadaad baa waryaaraha dhageysta war wasaaradda dhaqankan idin geynaya intiina waxaan ku fiicnaatana waa la idin shaqaalaysiinaya diintiina kala adeer suuq idin geli jaajuurka iska qaata jaajuurka annaguna in fanna la qoro uma naas on mufti in yaroon taabanana doonaynin waan ku kala dareerno dib ugu ma noqonba marka bariyaasaan tartankaas ka qayb galayo fiidiyahaas waxa xarunta akaademiyada oo bariga tartanka qaatay inaan joogaba ay soo dareenkaas booba ku jiray erayada booba iyo baa ku jiray iyo gaariya iyo Muuse Ali Faruur iyo Rashiid Garweyne iyo dadkii qiimeynay bay ahaayeen ya iyo adoo rag badan oo kale intaan aan qaarkood xasuusnay waan gartay kulleeyay laga dhamaamaayo weersada bariga wankan loo galay waxaan weersada isku baranay xasan daahir ismailna noqon habeennimadii markaan ka soo dareernay meeshii baa bas yaroona soo qaaday burnikiira madoobaay gabayga dhaada akhriyay kuma aha xasan baari anoo daba fadhiyaa waqti reesaan ku anoo aha rasuul niyada waan ka galaya ilaahay iska leeyahay baan moodayay anuu tiriyaad galaysaa wax taata kuma fikireen waxba cadaalada bariga mana aaminsanaa meel walba in la isgeeyo iyo in la isku habeeyo baan haysto
kusoo quusan bahayd moogta dagaalo sokeeyaa dagaalo sokeeye iyo balaaye iyo baahi iyo duruufade oo aan waxba cadaaladiiba jirinba waan yaabayba markay igu yidhaahdeen kaalinta saddexaad dee waa nagii ku diyaarinay riwaayadii intii yareed xataa dhar baan ka iibsaday lacagta badnayd beriga hadda lacagtaasi ma taqaana intahay $50 kaliya budhamaanba waayeyba bil baan ku qeylin dharnaan ka iibsaday way barka badnayd waad waarantayniyo waay waxaa jirta hees ay Yurub qaado baryaamada dad dhegeysan jireen magaalada ka maqnaa Hargeysa Hargeysaba kama tageen Hargeysaba kama tageen haddaan sii ogeytan iyo tabaalaha caashaqay adoo tacabiray ku hela nin Nairobi baan berigaa joogayo aniga iyo tiim kale ayaa naloo qaaday tababar waxaanu ahayn 21 dhalinyaro ah oo halkan oo 7 Puntland iyo 7 koonfur ah iyo 7 Somaliland oo keer baan qaaday waxay noo direen waxbarasho kulliyad waxaan dhigan jirnay la yidhaahdo Kenya Institute of Mass Communication markaas khadar cakulla nagu jirayo khadar cakulla oo macallinkayga iyo idaacaddan aanu ka wada tagnay oo dhinaca soolje isagu laakiin ka soo galay ayaa dee reer buu lahaa anagu reeramaanaan lahayne aniga iyo waari cabdi yuusuf iyo waan nahay moogti ayaa teleefanadu lacagtii naga dhameeyey bal idii islaantiisii rib garaacay kul moogti waan yaabay waxaan jacayla yaa hidib teleefankii haddana marka halkaasi heestaasi islaantiisa ku saabsanay haddaan sii ogeytan iyo tabaalaha caashaqee adoo tacabiray ku helaa midaanu tasoobay iyo suhuurba kamaan tageen bay ahayd markaa waan ballaarino markii dambe la qaadayo Hargeysaba kama tageen baa laga dhigay yaa Hargeysa dhan ku dhuuqdo markaa ku dhuuqdo sax way waxa jirta hees saxaafadda qudheeda waxa tiri waxaan ahay wariye xor dad waxa soo weydiin tiro maanta wariyihii xurmey wallaahi xor baan ahay waxyaabaha kaliya ee aan caafimaadkayga ku dareemaba in isku mahadiyo waa xorriyadda kowde ilaahay mooyaane cidaan ka habrada iyo waxaan u joojiyo xataa waxaan wada hadduu qaldan yahay laakiin se aan aaminsanahay inuu saxsan yahay aniga laygama furfuro yaa ma difaanta hataa hadduu qaldan yahay aan se anigu u haysta inuu saxsan yahay ilaa layga qanciyo oo lay fahansiiyey inuu waxaasi qaldan yahay in waxa waan ku dheganahay laakiin hebel baa diidi iyo heblaaya waa xaasima garanaysa bini aadmigay waa la ixtiraamaa amba waan ixtiraamaa laakiin qadiyadaha iyo mabaadiida iyo xaqiiqooyinkaaga caqligaaga weligaa lama caayo yaa haddaad caqligaaga ka tanaasusho dee caqligaagii dad baa isticmaali doona marka caqligaaga haddaa weligaaha ka tanaasul waxaad diidan tahay diid waxaanad garanayn ma garanaya iska dheh waxba ku yeeli mayso waxaad aaminsan tahay qaladna ha ahaadee bartaa la taagnow baashan lacagta la yidhaahdo ee dadka wasakhaysay abti cidina kaama xigto ilaaha bixiya isku inubad u wada jirtaan soo moogidee yaa xorriyadda horta waxa ugu weyna qaadaa waa taade waa ama shaqadaa lagaa eryey ama waa lagu dhiibi waayey yaa ama waa lagu xidhi waa xorriyaddii ma garanaysa ta ugu daran laakiin waa lacagtay dadkii wadanley bay wada noqdeen moogta baashan lacagtana yaa in adeerow kolba sidaad ku doonayso ilaahay kugu dhiibaa soo moogid yaa lacagtani way qoran tahay marka ugu horeysaba arsaaqadaadu way qoran tahay inagoo dhalan baa la qoray kolleyba waa tii ku soo gashaa laakiin adiga hawsha kuu taallaa waa qaabkaad ilaahay uga qaadanaysid ma adigoo tuugabaad ka qaadan ma adigoo dawarsanayaad ilaahay ka qaadan ma adigoo tay xiran oo nadiifa oo soo dhididay baad ka qaadan qaabkaad doonaysaba markaa go-aansanaysaa moogti tacabka maaragtay imaka hadday bahashu ninka tuugga la yidhaha soo madarag nin ka geesisani ma jiro anuu hortu geesinimaan ku ogey ninka shaqa dadaal badanna ma jiro ila waa tuug haddii lagu qayliyaa ninkaas dadaal badanna ma jiro innaga qof waa laga yaabaa
la yiraahdo shaqada afarta inay dhib ku noqoto afarta rawaxaad ya oo saddexda meel baan tagayaa kulba fasax isagu afarta habeenimo shaqadiisa u soo jeeda Soomaali ya haddana inaga shaqooyinkeena waa computer-ka yar iyo fadhiga Soomaha isagu deyrku soo faranaya siligu ka soo dhacaya albaabku handraabka iska furaya markaasuu kabaha aayar ee shanqadha qolkan uu og yahay in la hurdaba ayuu soo furaya saddex nin oo hurdu aayar ka dul talaabsanaya raganimada iyo balka warnadu shaqo waliga dadaal inta leeg yaa u gali kara la waxna waa shaqoone weygan buu doortay waxa dadina shaqo tahay soo moogid waa nolol raadistay lacagtii buu raadinayaa markaasuu boorso yar ka dul qaadaya hankiisuun baa ilaahay yareeyay wax laga yaabaa inay bushandadan yar ku jiraan laba keeshali iyo mariyo yar calala iyo ma garanaysa axbad cadaya wax noocaas laakiin tacabkaas iyo kartida hadduu meel kala gelin lahaa baladu ka war iyo dhiiranaanta hadduu xafiis la soo fariisan lahaa libaax buu noqon laga baqaa ninka xilliga shaqo u diyaarado ka war ee haddana riskiyada inta lagu galaya haddana waxa yar qaadanay ma garanaysa mariyo la waray iyo shaqooyinkiina xor marka inaad isagu baa doortay eeg ama waxa dooranaysaa in laalushahan lagu dhiibo ama inaad xoolaha ummadda ka dhax qaadato wixii lagu qoray ama inaad deer sida tuuga deerka fanato ama inaad sida wadaadka garka bahalka alle masaajidka kirayso ilaahay sidoo habaaray nabiga Soomaad maqal ninkii masaajidka ku dhex baafiyay alaab ka luntay masaajidka in business la geliyo waa halis weeyaan iyagana waa ganacsato Soomaad garan ana waxaan garanayaa si wax isku bedeleen aniga oo filimaantii hindigan daawin jiro markaan ku raagay inta xaafadda ka boqon jira aabba ku qabsanay masaajid seexdo wallahi inaan weligay laygu oran ninka masaajidka leh wareedhe miyaad nala seexanaysaa xataa laysma weydiin jirin baladuu ka war imika masaajidka seexanaysaa waa kee casarkuu nin u xiran yahay waa masaajidka dabaqa wada dhalaalka lama soo madaragtid Nairobi maalin aan soo marayay ayaa meel anigoo u qaad doonanaya ayaa waxa iga soo horbaxay maqribkii markaan shaqadii ka soo baxay weeyaan ayaa waxaan arkay dhowr iyo 40 dumar oo meel taagan ninkii taxiga ee soo kornay maxaa ahayd wuxuu igu yiri ma taqaana wuxuu meeshan ay joogaan baa kaniisadii oo waa dadkii bilaa guryaha ahaa waa homelesskii markaa way seexdaan qaybay seexdaan baa looga sameeyay innagana bahalkaa labada dabaqe intaa leeg baa nin duruufi haysa kadinka hadduu jiifsadaan laga furay keebaa gurigii ilaahay anu masaajidadii aan aqaanay guryihii ilaahay bay ahaayeen kuwani guryihii ilaahay maaha siduu ku soo qaatay baa qaldan xataa markay dhisanayaan soo mataqaanid kala bar bay gam iyo gam ka siiyaan jamacii bay yareeyeen aniga xafiiskayga laba masaajid baa ku kala yaala ganacsi iyo mid kale oo iskaga soo horjeeda mid waliba waa laba dabaq jamaca intaa la eeg bal waxaad ka waranta miyaan iyagu kala qaybin uma dhaxayso 100 talaabo jamacii meena kala qaybinay hargeysa ma baahan waxna masaajid maya bal ka waran maxaa masaajidka horta loo sameeyay jamacu isugu yimaado Soomaha nabiga qolo ku jira nabi allow madiina weyn naga yaro durugsan tahay waagaana jamaca lagama maqnaan jirin magaalada aanu soo guurno wuxuu ku yiri waariyaadhe waar iska jooga halkiina intaad soo logeysaan baad ka khayr badantiin kuwa magaalada dhex degan muu oranin war halkiina masaajid yar ka sameeysta muu oranin soo guuro war runtiina balaadu hadda masaajidadan ha falaqsatada haddana aanad seexanayn haddana la kareynay dhinacan madrasadka dhinacan gurigu ka dhistay dhinaca haddaba masaajidkii baa saasahe maxaad u malayn qaybihii kale ee bulshada ganacsadii maxaad u malayn dhakhtarkii maxaad u malayn booliskii maxaad u malayn traafigii wakaada wadada iyagaaba jaam geliyaba traafig wadada cid waliba si qaldan bay wax u raadinaysaa baabuurtiiba isagaaba xirayaba si uu keena uu yiraahdo shaqo kale la wada haya shaqadii saxda diba ma haysaba imika hees ay xadiyaga isku qaadaan oo anu saatirina waxa tir heestaan ugu jecel heestaan sameeyay tirakoba la dhagaa waayaha nolosha dhan bay leedahay bal maynu dib ugu noqono hawa in wax la isweydiiyo waa muhiim waxaan markaan ka hadlay waxba la islama weydiinayay inaad dadku waa binaadmigu adaptation waxbay la qabsadaan
waa lala qabsanayaa iminka makaaga sheekeynayay sidii nolosha isku bedeshay berigii aan yaraa iyo farqiga u dhaxeeya technologically iyo dhaqan ahaanba dee haddaan waxba isweydiinayno kolba waayihii lagu jiro una la qabsato qaladka iyo foolxumada iyo dembiga marka lala qabsado wuu caadiyoobaa unless aan su-aalo layska weydiinayn markaa qaybtii in la fikiro la odhan jiray dadkeenu meel bay iska soo dhigeen way ka yimaadeen nobody uma baahna inuu fikiro waxa igu filan waxa aad tidhi inaan kaa daba idhahdaba ya aniga boostiyada iminka markaan soo dhigayo inta badan wax kritik kale ma qorqoraa maaye ka u horeeya hadduu ii duceeyo kuwa kalena way duceeyaanba ka u horeeya hadduu isoo caayo kuwa dambana waabay soo caayaanba dad waayo uma baahna inay fikiraan ka hore arkeen heestaas maxay oranaysaa heestaasi tirako markaa waxay odhanaysaa barbaar imisaa tahriibtay bukaan imisaa u taallay intee gaajada la tiicday oo taa kula weyn u baahan bulshada imisaa ta koran tallaal imisaa u baahan waa su-aalo uun waa kala mawduucyo heestu waxay si guud u baraarujinaysaa in wax kasta wax layska weydiiyo talaa lagu meel maraaye tallaabo si aan u qaadno miyayn tirakoob samayno ilan waa la istabaayay tirakoobka maaha kii doorashooyinka yacni statistics research ya kowdhe abaarahan tahan u faafay tigaa tiray xoolaheennu intay taabteen dadkeenna markii tiixii la waayey taagtooduna sii yaraatay intee tuulada ku yaacday talaa lagu meel maraaye tallaabo si aan u qaadno miyaan tirakoob samayno ilan waa la istabaayay intay taranteennu gaadhay intee ubad sii tafiirmay intee dugsiyada tegaysa markuu tahli waayey waalid inteebaa taagu weyday tacliinta inay ku biirto talaa lagu meel maraaye tallaabo si aan u qaadno miyaan tirakoob samayno ilan waa la istabaayay bulshada imisaa tanaaday inteebaa weli tisqaaday inteebaa shaqo tegaysa tijaarad intee ku foogan intee turuqooda maasha intee ruux kale ku tiirsan hataa waa in la ogaadaa inta bilaa camalka haddee iminka de waxyaabaha ugu badanay la tamarin la mataqaana ninbaa shaqeeya 10 reer baa saaran isagiina meel ma gaadhayo wax siintan uu siinayaa kuwana way fadhiisinaysaa waayo haddayna ogeyn inuu hebel soo diraya kiradii iyo biilkii iyo wixii may dhiman lahaayeen may way shaqayn lahaayeen ishayntan maaragtay aan daruuriga ahayn sadaqada diintu way dhiirigelisay waxsiinta way fiican tahay laakiin islugoynta maaragtay inaan biil markay isaga kaa qorode adigoo maaragtay caafimaad kaa qaba waa inaan ku dilayo waa ta Somaliland oo dhan haysato oo ilaa hay'adaha iyo fundriska iyo deeqbixiyaasha laga joojiyo waxa aynu dooranay habkii aan ku sheegay Ilaahay inaynu uga qaadano dawro deedna teen markaa ma shaqeynayso dal ahaan baynu saa ugu nool shakhsi ahaan iska dhaaf anu leenahay oo USAID baa joojiyay Allah USAID waa ayo waa dad iska soo ururiyay oo la yiri dadka mashaqaystayaasha ah ee Afrika ku nool yey dhimanina aynu wax u dirno umada aan shaqaysan baa laynoo yaqaan bas uma gudde waayo wadadii nooga kala daxay wax noogu soo diraya wuxuu bay habaysteen intaynu qaban karnay qabtaan soma marka inta badan heestu marka waxay wacyi gelinaysaa orto in wax walba la ogaado oo wax la iska weydiiyo oo la dhimay waxani muxuu dhacaya ya hadii la kala garan waayo ma bishan in ay 700,000 inaga dhinteen awalsi ay inaga dhiman jireen 50 qof bishii hadii la dareemi waayo ka warxta marka xayawaanka maxaad ka duwantay farqiga inta le waana sidaynu nahayo ilaa gaala inoo soo sheegto la ilaahdo xanuunka aynkaas ay idinku faafay inagu meenu dareeneenba markaas haddana waxa caalamku inoo soo sheegay xitaa sida beenteenu u jilayno farxal yar baa meel la dhigaya oo si gaalkii loo tuso oo aan dhabdhabna ahayn ya bahashay yar madaxa lagu qabanayo oo ya huurhaaba lagu nooliyay aan jirin nin waxna ilaa aad lahaansho dareento adiga ka yimaado waa jilis oo beerdhiyan bad ku doonaysaa oo wax saxmaya ma jiraan kulleeyda sugaantii soo baxday waa cid ka badina waa la wada garanaya inta badan sugaan hadda soo baxaysa amba heeso soo baxaysa soo baxaya ma jiraan wallahi horta waxa jira heeso badan oo marmarka qaarkood aan wax baarbaariga soo baxo oo laga yaabo inay qaar 10 sano ka hor aan qoray qaar
وفنانين تي أنو ديبي أنا soo saarin iyagina aan xasuusnayn marka waxa kamid midan halkan ku arkayo kale waxa weeyaan waa wiil iyo gabadhii way isku dhaxsan yihiin oo gabadhii waa ninkii ka araysan yahay marka in kala tag bisugna doonaya iyadiina way aqli celinaysaa oo wuxuu leeyahay leedahay jacaylkii mee badnaa hilowgii muu burburay naftayda barkeediyo maxaa helay barashadii iyaduna isaguna wuxuu ugu jawaabayaa inuu waagii baryaba ma qaadi karaayo buuq banaankan kala naho buga waan laabaya waxay leedahay bishimaha ilkahoo ku dhaca inay bararaan la arag birina way soo kabtaan haboodina qaali joog waaba ka aqli badan oo sasabaysa soo moogid wuxuu ugu jawaabayaa markaad ka shabayliso jacaylkii baabay ama been baan ku jilaa niyad way barakacdeen iyadiina waxay leedahay markuu xaalkeena buuq bartaa ku xirmaaha oo bireeya jacayl tarmee balaaye intaa ka weyn kula carruur isu leeyina ma garata waa tan leh bartaa ku xirmaaha oo bireeya jacayl tarmee balaaye intaa ka weyn wuxuu ugu warcelinayaa haddaan la isu beernugleyn jacaylku intuu burburo ayuu bedelaa nacayb badbaadana waa idaa waana runo hadduu jacaylku sidii yahay loo wadi waayey aakhirka nacayb buu isu bedelaa ilaa waxaa marka horeba jacaylkaba dareen wanaagsan baa abuuray dareen xun oo haysasho ah oo haddii laga dambaysiiyey iyo xisaab xumo ah aakhirka waa la culuubaya nacayb buu isu bedelayaa oo waa la isa sugnaanayaa markuu isaa idhaahdo ayay haddana odhanaysaa adaan kuu baahanee boqnaha caashaqa hagoyn bilaawuhu yuu ku dhicin ilaan boqolaa tahee walow aysaa adag u xujaysay haddana wuxuu odhanayaa badweyn ruuxii galaa dabaal buu kaga baxaa biyaha dusha aan arkana bus baa hoostana fadhiya heestu intaas kale waa midkiina adagoo iyo muuji in aada loo xumeeyey mid kale waxay tiraahdaa adduunyada qof aan joogin heestaasna waa mala awaaliyadana wax iska mala awaal weeyaan iyaduna oo niyow dadka qaar baa waxaan isweydiiyey waan maqmaqlaa qof baa jeclaaday sawirka jacaylkaa kugu soo horreeyey ma garanaysa adduunyada qofaan joogin ma ku helay jacaylkiisu ruuxaan jaliil uumin oon jirin ma doondoontay sawir baad iska jeclaanaysaa hilowgii waa dareemaysaa qofkiina qof jira maaha moogta yaa raadgoobka jaahiisa jidka uun ma taagnaatay hadba gabar jarmaadaysa ma jaleecaday mootay adigoon dhaqaaq joogsan ma ka daba jaqaaflaysay soo horjoogsigeediina jawhara ma noqon weyday adigoo jiciiraysan oo jabay ma tidhi sooray jidhka ma isku soo taagtay jidhidhaco maqaarkaaga adigoo jaraynaya ma juuglaysay laabtaadu baahida jamaalkeeda jamashadu ma sii biirtay markaad sii weydaba jigjigiyo waddada siinay jameecada ma taagnaatay adoo laba jibaaraya socodkii ma joogtaysay jaarkiiyo dadkoo yaaban jiranaan ma kugu sheegay ilaan way yaabayaan ninka yaa waxaa jira bal noo sheegta wax jawaaba ma weyday ilaa dadka wax u sheegtana ma haysid yaa dadkana war badan yihiin moogta arriba ha bariyahan la yaa ilaan jacayl baad sheegataabe waa garta mid kale waxay tiraahdaa farxaddaada qaatay eriyada waxa kamid ah farxaddaada qaatay taa laftigeedu waa kuwa soo socda insha Allah waa mala awaal amaan ah waxay odhanaysaa waa faral jacaylkaagu qalbigaygu faray maanka waa faral jacaylkaagu qalbigaygu faray maanka fadli weeye guurkaagu iyo faraj ilaahaye fagaraha markaad joogto filka iyo hablaha buuxa way fool xumaadaane kolka aad fadhida meesha way fooraraaruunee ma cid baa ku faanaysa fooliyeyl waad muuqda ma fiicnaada xaalkaygu markan taba faqaagiiye ha fogaanin ee kaalay farma qaada awgaaye markaa way ka tagtay kulle moogta way ka sii maqantay goday iyo adoo faafan fiiqiyo afdheer jooga wadna kuu fuglaynaya iyo maan jacayl faafay falay ood ku dheeraatay soo kuuma soo fooriyo ma foori baa gaadhaysa faafan farxaddii adaa qaatay fahamkii asqaa maydhay dabadaana foolkayga faruuryaha kamaan qaydin ma fayoobi baa taala adeedu iska mala awaalkaas ayay ahaayeen heesaha iminka aad samaysay kolley runtii aad buu fara badan yahay qudhowda ma tirakoobtay adugu wallaahi may tirakoobka maxlada maadka biludaadu there was a difference laakiin anigu waxay
horta qaar badan oo garanayno la qaadaaba jira waxaan ku gartayba bahalkii aan ku yiri mursal waale ni horta hodan baan hadal hayno waniyo gabadhaada waa jecel codkayga horta heesaba isku maanaan qaadan YouTube kumbu baaro saddex baab uu soo saarayba hodan qaad aanan horena u ogeyn ha ma xasuusta hadda hees hodan waan jecelays niyo horta waxay ahaayeen hees aroosyo laakiin haddana aad u hana qaadayo dad fara badan daawadeen markuu i tusay isaga laftigiisuna wuxuu i tusay hees markaasuu i tusay dhowr sano ku jirtay oo uu qaaday oo aanan anigu ogeyn waan u dhiibay run ahaan waan ogaa laakiin inuu qaaday ma ogeyn oo tiraahdaa ii sheeg laba qaaradood inta lahaa ma ogeyn sumboguru tamba ma ogide inta laba qaaradood midkiiba ka saaran hees caan wey yaanu ma ogeyn iyadoo muddo ku jirtay ma sheeko soo qaadno sumboguru baad aragba sultaanka ku jirta marka tirakoobkeeda waa muhiim laakiin haddana waxaan ku xasuustay heesaha arooska iminka hees baa jirta biikee qaado oo tiraahdaa inaad isku dooq tihiin lamaana isdoortay biikeeba igu yidhi samee heestaasoo biikee waa nin dadaal badan oo fankiisa iyo shaqadiisa ku dadaala sababaha aanu hoos ugu dhicin moogta marka dadka kale hees waxay kaa dalbanayaan marka odi aroos ka rabta ee dee lacag la kala jarayo isagoo markaa hees sideedaba aroosyadan ka qaado igu yidhi magaca ku jirin buu igu yidhi san ugu qoray erayadeeda waxaa ka mid ahaa inaad isku dooq tihiin lamaana isdoorto iyo wadaaga dareen tihiin ilaa xad isdeeqayoo isdaawada aad tihiin duntana la isugu xidhoo tihiin dan wadaag jacayl dadkaa ka markhaatiyo warkiina ku diirsaday allow gurigiina daa haddii aad dadab gasheen damaashaad iyo ciyaar dartiin baa loo tumay allow gurigiina daa ereyadaasaa ka mid ahaa laxan wanaagsan runtii u saaray biikii waa laxamiista cajiib waa gartay aad buu laxankiisu yaabuu leeyahay ilaa hadda faaninta aad heesaha u dhiibtay horta anshax waan hayaa xamda kuwiin waan garanayaa yurub waxaa jira dad in badan dee runtii aan arkay iyagoo ku ammaanayo le sadiiq haddaba adigu lahada eriyada qaar baan warba ka haynba dadka waan u dhiibaa waana dib lee xasuusiyaa maxaas leedahay dadkaasi way kugu ammaanaa anshaxoo kale barnaamijka ka duwan anshax baa horta si kal iyo laaba dee usoo hadlay anuu wax kale dee ka odhan maayo isagaa nin wanaagsan undi waayo hees wax weynna ma aha mana filanaynba dee anigu horta inay weligay dee macno caynkaasa samaynayso walow la garan karo qof waliba wixii uu baahan yahay xilliguu u baahan yahay inuu macno u leeyahay haddana dee niyo xilli laysu mahadnaqaba laguma soo dhowaan cidiba imaka isuma mahadnaqdo cidiba wanaag isma tusto anigu yaab iyo kal iyo laab buu hadlayay marka waxay tusaysaa uun ninku arrinku ma weyneyn hees laysu dhiibayey ninku isagaa nin wanaagsan ahaa anshax isagaana mahadsan kulli caawa wax badan baa iska wareysan dee hadday noqoto saxaafadaadii suugaantaadii maro badan runtii waa lagu wareysta waxaa jira hadda fanaaniin iyo abwaaniin soo kacaya inta badan waxaa jirta halabuurku waxa ugu fiican helaa waa sawirka wey suugaantaaduna runtii sawirkeeda aad buu fiican yahay bal maxaad haddii aad tala siin lahayd halabuurka oo kale kuwa kaadaada yaroo kale si ay suugaantooda macno u yeelato maxaad oran lahayd waxaan oran lahaa waxaad marka horeba ka hadli lahayd ka gabay waxaanad ka hadasheen ha ka gabi macno samayn maaye waxaad marka horeba cid u sheegi lahayd eed ka hadli kari lahayd uunbaa tixna macno ku samaynaya waan garta fanaaninta heesa haddii noqoto kuwa xidigaa geeska oo kale ma jiraan qaar adigu aada u xiisayso aad sugaanteeda jeceshahay oo ama codkooda waa jecesha wallaahi imika adiga hodan soo qaado kale hodan waa fanaanad balaayaa ka dhacday mid u kala qaadi maayo laakiin yaab bay wada leeyihiin waa xidigaha iskamay noqonte ya hodan baa meesha maraysay yurub baa maraysay nimcaan baa marayay mursal baa marayay cabdi hani baa marayay biikee baa marayay aarshoor raggii ugu dambeeyey oo ugu yaabka badnaaba haddana marayay anshax baa meeshuu xidiga iskama noqon moogta talents baa dee isku yimi moogta
yaab leh intii marka sabta suugaantaasi waxa jira marka qaar eraad tiraahdo oo nin kale helada tiraahdo in heestaas oo kale xagaadii ka marto ma jirta suugaan la yaabtay oo tiriid suugaantu imakadan arkaaba dhalinyaro badan oo waxay sameynayaan quruxda iyo farshaxanka wallahi yaabis laakiin deefa eraya kaliya meel ma istaagayaano kaabayaasha dad waxay isku buuxinayaan xaggan la xamiistayaashii baa joogay axmed weli baa muusigii tunka u dhigtay waxbay is dhammaystirayeen laakiin makaba way jiraan raggan midhahooga ka yaabilsadonaysa waabaad ku hinaasaysaa baasha haddaanaad ku hinaasin oonad odhaniyo tan inaad samaysay ahayd kaama yaabin ya waa inaad xaasidnimo dareentaa ya oo tan adigu inaad samaysay bal mid iyo laba haddaad malahi dee dhakada ku igaabana ka garan anigoo taxfiidayda xunurto kawdhe tan waa xaafidaya qur-aankan xafiid lahay aad iyo aad laakiin anu markaan arkayo waan fahmaa sax wey marka aan arkayo aad iyo aad waay guntii gabagabada barnaamijkeena bulshada watan hadda laleeyda aqoonsigiiba soo dhowba bulshada reer somaliland iyo bulshada soomaaliyeed iyo dadka ku daawanaya hata marar badan bay ku dhahdaan asxaabteedu dadka bahda kf media ku xidhan codsi ka yimid baan kugu yeedhnay waxay ku dhahdaan sadiiq barmado u yeedh maxaad leedahay ugu dambeynta aqoonsigii iyo soomaali iyo haba haddaad wax isdhex dhigtay dee runtaan sheegayaaye somalilan aqoonsi iyo aqoonsi la-aan toonaba ilaa caqli baa laga shaqaysiiyaayo way ama baxday wayna tagta horta kawdhe intaa wixii ka duwan ee reer soomaaliya wadwadaan waaynu isnacno cidina cid kama itaalweyna cidina cid kama wanaagsana halkan hargeysa iyo somalilan nacayb kama jiro nacayb idinku ha baaqbaaqina ha baarhbaadhina haddee ha lays ixtiraam haddaan lays ixtiraamin wax allaala wax soconaya laakiin haddii layska daba yuuleeyo dee in adeero xitaa kii aan ku nacbayn baa ku nacaya soomaalinimada waxa weeyaan soomaalidu iyadaa in wax loo sheego u baahan soomaalinimadu xamar maaha soomaalinimaduna calanka buluugga ah maaha I believe imaka inay majority dhalinyarada koonfur ay ka dhab tahay inay saa u haystaanba cajalad qaldan baa kuwii ka waaweynaa ku duubeen dad badani waxay moodayaan inay dadka ka cadhaysiinayaan way aaminsan yihiinba soomaalidiid kuwii soomaalidiid markaa la kala xishoonayn balka aniga wax iga doonayay soomaalidiid ilaa aad u eeg soomaalidiid yacnii maxaan diidanahay inay dal wada ahaadaan aynu wada ahaano uunbaan diiday laakiin soomaaliya anigaaba ahadee daad miinis inuu soomaalinimada u yaqaano xamar marka la tago somaa ama calanka buluugga inuu yaqaano ninka maanta saa u fikiraya berri tole muxuu iga rabaaba mara la kala xishoodo aniga qof soomaalinimo iga jecel ismalihii uu jiraa run baan kuu sheegayaa soomaalinimadu ma aha bahaldana loo isticmaalo wax sanka la iska marmariyo ninka soomaaliya anigaa ah soomaali weligeedba halkana looga halgami jiray meesha looga dhintay waa halkan meesha layskaga daray waa halkan dagaaladii etoobiya halkii laga dagaalamay waa halkan xoog soomaaliya waa wada dagaalamaysa ma diidan laakiin halgankii ugu weynaa iyo abaabulka iyo dadka xamaasadda wadayba halkanay joogeen dad badan oo raadkii soo haya beri hore aanu kasoo gudubnay baa annagiina la yaaban allaala jidadkan lasoo maray oo dhan ay marayaan waa lasoo wada maray xaqiiqooyinka la qabsada nin walba wixiisa iyo tiisa ha lagu ixtiraamo ha deeqdo anigu ismalihii muqdisho haddaad tagto waad ku qaloonaysaa somalilandna ninna aan waxaan aaminsanahay somalilan waxay u tarta mooyaane waxay ka xumaynaysa ma laha waa u ayaan daro iyo ducufnimo iyo nasiib daro in maraykan imanka aqoonsado somalilan iyagoo ciiqda weli haya waayo hadday aqoonsan lahaayeen maxabo iyo wanaag waxaan ka ahayn oo ay soo kordhin lahayd ma jirto soo moogid yah dad walaala ah oo laba dal ah oo wada dhashay unbaa la noqon lahaa soo moogid yah laakiin iyagoo weli qiiqda haya oo wasiirkoogii dhammaaya arrimaha guduhu
hooyadiin waxaa ku sameeya uunay ka dhiman tahay hadalkiisa horta Soomaaliya maalin ka ayaan daran tahay oo soo martay ma jirto wallahi waad arkaysaa qof dadka ninka haysta inuu gaashaandhigiisa oo marna arrimay wasiirkiisa uu kalsoonida badan yahay oo meelaha ugu waaweyn u bedelo luqadda ku hadlo oo ku diirsanayo waxay raadin la yihiin Jubbaland iyo Puntland ku talagal bayna u raadin la yihiin they don't want why iyaga go'ay hadda oday go'day way goosteen Puntland weli ma go'in Jubbaland weli ma go'in laakiin koonfuri Banaadirland way goosatay waana soo bixi doontaa waxay ka shaqeynayaan inaanay isu iman markaas uu ku leeyahay hadana Soomaaliland noloshu inay fake iyo been ka noqoto iyo khiyaamo ma hamoogti ya Soomaaliya dib ku filan way soo martay marka nimanka madaxda joogta tiina u tura inaad rama meesha iska baneeya suma wallahi hadalkayga dadku waa la xumeeyay qaar bay soo caydoonayno laakiin ana uga la xajaclo badan suma wallahi Xasan Sheekh Xamar ilaah baan ku dhaartay ana uga la xajaclo badan waayo waa disgusting wuxuu meesha laga wada waa mijaxaabintii ugu xumayd baa lagu hayaa soma gowde hadaysan ku sii socotana waa kuwa iyagiiba sheegayay badii al-shabaab baan qabsanaysa